kulanti wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamij ku saabsan sheekooyinka fanka iyo qisooyinka fanaaniinta Soomaaliyeed. qisada kale ee aan maanta soo qaadanayno waa qiso jacayl waxayna ka hadlaysaa fanaanada weyn ee Saada Cali allaha jannada ha geeye. Saada Cali oo iyadu ahayd fanaanada caan ah aadna u cod tulmoon joog iyo jamaalba eeba u dhameeyay oo ahayd inan aad u jalaqsan oo kuwii malaha la odhanayay jannada ayay ka soo baxeen haddaba jacayladeedii ayaynu ka sheekeynaynaa caawa inta aynu ka maqalnay ama naga soo gaadhay. fanaanada Saada Cali iyadoo aad u daayar ayaa fanka Soomaaliyeed soo bilowday bilowgii toddobaatameeyadii. fanaanka weyn ee Muuse Ismaaciil Qalinle oo ay ku kulmeen riwaayad ay wadeen kooxdii ama macallimiintii la foole oo abwaanka weyn ee Saciid Saalax hormuud ku ahaa ayaa Saciid Saalax u keenay fanaanada Saada Cali si uu bedesho fanaanad booskeeda iyada ka baaqsatay. kulankaasi halkaasi ay ku kulmeen ayaa waxaa ka dhashay jacayl caaqiba leh oo isagu noqday mid kulansiiya laba fanaan oo cod tulmoon Muuse Ismaaciil Qalinle iyo weliba Saada Cali labadaba Allah u naxariiste. jacaylka halkaasi ka unkamay ayaa wuxuu ahaa mid aad iyo aad u cajiib ah iyadoo fanaaniintu ay isu qaadeen heeso kala duwan riwaayado badanna ay ka wada qayb galeen. jacaylkaasi ayaa waxa uu ka dhashay fanaanadu iyo fanaanku ay aqal galeen iyadoo jacaylkaas uu ahaa mid laga sheekeeyo geyga Soomaaliyeed miyi iyo magaalaba. haddaba waxaa la leeyahay labada fanaan oo iyagu jacayl mug leh isu qaba ayaa aqal galay inkastoo dib dambe uu khilaafaad iyo weliba isfaham waa soo kala dhexgalay labada fanaan uu aqalkii u baaba'ay labada fanaanna ay ku kala tageen. fanaanka Muuse Ismaaciil Qalinle waxa uu guursaday fanaanada Saada Cali iyadoo ah gabar ugub ah oo curdun ah oo markaasi soo baxday welibana ah fanaanad xilligaasi ahayd haldoorka fanka Soomaaliyeed. siibxuma aqalkoodii ayaa isfaham waa labada dhinac mid ka yimid ku baaba'ay. haddaba fanaanka kale fanaanada Saada Cali ay wada aqal galeen jacayl dhab ah oo aad iyo aad u qiimo badanna oo dhexdooda ka abuurmay waa fanaanka weyn isagana Allah u naxariistay Cabdi Salaad Aadan Beerdilacshee. dadka fanka Soomaaliyeed iyo suugaantiisa ka faalooda waxay noo sheegeen in labadaasi fanaan jacayl dhab ah oo u muuqda kii Leyla iyo Qays uu ahaa midkii ka dhaxeeyay. labada fanaan ayaa iyagu riwaayad ay ka wada qayb galayeen oo ahayd hablayo hadmaad guursan doontaan ku soo bandhigay jacaylka dhabta ah iyo siday isugu hamuun qabaan hamigooda iyo weliba jacaylkooda halka uu gaadhsiisan yahay gacaltooyadooda ku soo bandhigay. qof kasta oo muuqaalka heestaasi daawada sida labada fanaan ee Saada Cali iyo Cabdi Salaad Aadan Beerdilacshee ay u jilayaan jacaylkooda iyo weliba sida ay waaga muuqato dareen jacayl oo dhab ah ayaa waxa ay tahay mid muujinaysa labada fanaan jacaylka ka dhaxeeyay sidoo uu qoto fogaa uu ahaa mid guntiisu aad iyo aad ay waadkeed. dadka ka faalooda fanka ayaa iyagu waxa ay noo sheegeen in fanaanada iyo fanaanku ay ku isguursadeen aqalna galeen ay u dhigeen iyo asaas jacaylkii dhabta ahaa ee ka dhaxeeyay. dadka ka faalooda fanka ayaa iyagu waxa ay sheegayaan in labada fanaan calafka iyo waqtiga uu kala geeyay muddo kadib markii ay isqabeen. dad kale ayaa iyagu waxa ay sheegayaan oo iyaguna fanka Soomaaliyeed ka faalooda labada fanaan inay si dhab ah isu jeclaayeen laakiin aysan isguursanin. si kastoo ay ahaataba jacaylka muuqaalka ka muuqda ayaa isagu waxa uu muujinayaa in labada fanaan uu dareen jacayl ah iyo mid gacaltooyo labadaba uu ka dhaxeeyay. inka kale dadka ka faalooda fanka Soomaalida ayaa iyagu sidoo kale waxa ay tilmaamayaan in fanaanada Saada Cali uu jacayl kala dhaxeeyay mid kamid ah wiilashii uu dhalay Maxamed Siyaad waa sida ay hadalka u dhigeen.
jacaylkaasi oo laga ogaa gudaha fanka Soomaaliyeed iyo dadkii magaalada Muqdisho xilligaasi madaxda iyo fanka ka agdhawaa ay aad iyo aad ula socdeen. jacaylkaas ayaa isagu ahaa mid hadba gebi dhacleeya oo ahaa mid aan salka iyo seeska midna dhulka dhiganin. Saada Cali ayaa waxaa la leeyahay in inankaasi uu dhalay Maxamed Siyaad ay jacayl dhab ah u qabtay isagana uu jeclaa, laakiin xilliyada shaqada iyo weliba waqtiga uu hayo inuu jacaylkeeda la ambaqaado oo la joogo aqalka welibana hamuunta la qaybsado ayaa aad iyo aad gabaabsi u ahayd. hees caan baxday gudaha Soomaaliya oo lagu magacaabo Isafgarad ayay fanaanadu qaaday. heestaasi oo noqotay mid hirgashay ilaa iminkana dadka Soomaaliyeed ee fanka Soomaaliyeed xiiseeyay aad iyo aad u dhageystaan. heestana waxa ay u dhaceysay sida tan, inkastoo qisadani dad kale ay ku tilmaamaan inay qusaysaba madaxdii xilligaasi wadanka ka talinaysay Maxamed Siyaad naftir madaxweynihii kacaanka ee xilligaasi wadanka ka talinayay Maxamed Siyaad iyo weliba islaantiisii Khadiijo xilligaasi colaadi iyo weliba kala fogaansho soo kala dhaxgalay ayaa heesta laga sameeyay ayay leeyihiin dad kale oo iyakuna fanka Soomaaliyeed ka faalooda. si kastoo ahaataba laakiin waxaa la xoog badinayaa in heestu ay qusaysay fanaanada naftirkeeda oo iyadu jacaylkii u qabtay inankaasi iyo jacaylkii gabi dhacleynayay intaba heestaasi qisadeeda laga sameeyay. haddaba intaas aynu kusoo gabagabaynaynaa qisadaasi maanta. dib dambe intaanu u kulmi doonaa. nabadgelyo.